wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed ay gadoodeen kadibna ay xirteen degmada Walaweyn iyo deegaano hoos tagay iyagoo sheegay in uu khiyaanay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen ciidankan oo muuqaalo iska soo duubay ayaa sheegay sidoo kalena ku hanjabay hadii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen uusan ka soo jawaabin cabashadooda ay qaadi doonaan talaabo tani ka sii dheeraada ciidamadan gadooday ayaa sheegay in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareen uu ku soo daabulay deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ciidamadan ayaa sheegay in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareen uu deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose u keenay inay la dagaalamaan qaar ka mid ah macaawisleyda Yaaqbiro Weyne iyagoo sidoo kalena joogo muddo sanad ku dhow sidoo kalena aysan haysanin wax xuquuq ah oo markii hore uu ka ballan qaaday iyagoo waliba saad la'aan ah tanina ay ku tahay caqabad inay goobta sii joogaan waxay sheegeen inaysan haysanin hub iyo rasaas ku filan sidoo kalena gabi ahaanba laga jaray muddooyinkii ugu dambeeyay gunooyinkoodii iyo xuquuqdii ay ku lahaayeen ciidanka maamulka daraawiishta ciidamadan ayaa marka hore sheegay inay hadda cabanayaan balse hadii aysan laga soo jawaabin muddo dhan 24 saac Cabdicasiis Maxamed Laftagareen waa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ay talaabo tani dheeraad qaadi doonaan ciidamadan ayaa sheegay in iyaga oo xuquuq laan ah sidoo kalena aan haysanin gunooyin iyo saad baylahna ay yihiin cadow badan in Cabdicasiis Maxamed Laftagareen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo dhigtay xaflad sanad guuradii 6aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay maamulka Koonfur Galbeed iyagoo sheegay in xafladaasi ay ku baxday $10 halka iyaga ay leeyihiin saad iyo cuno sidoo kalena ay baylaha u yihiin in mar walba la soo weeraro halka aysan haysanin rasaas iyo hub ay uga hortagaan kooxaha soo weeraraya ciidamadan ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay waxa la geenayay Yaaqbiro Weyne iyo deegaano ku dhow kuwaas oo la dagaalamay macaawisleyda ku sugan Yaaqbiro Weyne iyagoo sheegay inay la dagaalamayaan kooxo ka hor imaadsan maamulka Koonfur Galbeed hase ahaatee tani ayaa mid fadeexad iyo caqabad ku ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareen in ciidamadii muddooyinkii ugu dambeeyay halkaas geenay ay ka soo cawdaan mushaar la'aan iyo sidoo kale xuquuqdooda oo la lunsaday halka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo haatan u dabaaldegaya sanad guuradii 6aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay maamulka Koonfur Galbeed si kastaba ahaatee cabashada iyo muuqaalada iska soo duubeen ciidamadaasi ayaa baraha bulshada qabsaday halka wali jawaab aan laga helin madaxweyne maxamed halka jawaab aan wali laga helin madaxda maamulka Koonfur Galbeed